بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وحلقة لباد ماركتي موضوعي كساب سنة ضعف الإيمان يا مظاهر توليه هي علاج كيسة مركا وحا أينو كسو شاكيني إيمانك وحيالها كتوسي إنو ماركتي إيمانك ضعيفي أفر قضوة كمذا أيها سو شاكني قضب كشناد oo kamid ah waxyaalaha ku tusinaya maartay iimaanka qofka inuu daciifay waxa kamid ah diiqu sadri wa tagayur almizaaj, yani qofka oo maartay dabeec xumo isku arka oo laabtiisa ay ciriirsanto oo noqdo qof aan maartay waxba u gagsan karin oo caradiisu dhowdahay oo maartay maxaan ku dhahay sabir lahayn, samaaxa lahayn, wax walba isku adkeynaya. marka qofka hadaad waxa isku aragto waxaad ogaataa iimaankaaga waa la galay, daciif uu noqday. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay iimaanka al-iimaanu as-sabru was-samaaxa. iimaanku waxa weeye waa sabir iyo samaaxa oo maartay qofka samix inuu yahay oo qof aan waxba isku adkeyneynin inuu yahay. xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo ku sugan fi silsila saxiixa. qofka muslimka waxa laga rabaa mu'minka iimaankiisu kaamil yahay inuu yahay qof maxaan ku dhahay dadka qaabilaya, dadka qalbiga u furaya, dadka u dulmaya, iyagu usoo dulmayaan oo macnaha ay usoo dhowaan karaan oo isdhexgeli karaan. ma aha qof laga cararayo, ma aha. saa daraadeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam mu'minka wuxuu ku tilmaamay biannahu ya'lafu wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf. wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka mu'minka waa qof isaguna maartay dadka cibaadallah adoomada ilaahay fiican u dulmaya oo qalbigiisu u dhow yahay, isagana la jecel yahay oo loo dulmayo. laakiin qof aan maartay laga cararayo isaguna dadka fiican ka cararaya kaasi iimaankiisu iimaan mu'min ma aha. qodobka lixaad oo maartay kamid ah madaahirta ضعف الإيمان waxa weeye عدم التأثير أو التأثر بآيات القرآن. آيات كقرآن والله سبحانه وتعالى سودتشي وقفك وآن سامين سكة صديق قرآن الله آخره حتى معني سادو قرنيه وحبا مارتي وعدي وعيدكي وحوى البوالي ومقليا، لكن هبا يراتي وحي سامين يسمجره حالة النوع عاسو كريتا وحي كتوسين يسامرك إيمانك قفكاسي إنو ضعيف يهي. قضبك كحيقة تدباد والغفلة عن ذكر الله عز وجل، قفك أمارتي موغناده هلمامة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، حالة النوع عاسو كلاتا حالة لغو يقانا دادك مؤمنين تا معها، بل وحالة لغو يقانا منافقين تا الله سبحانه وتعالى وكتل مامي ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما حسان منافقين تو الله سبحانه وتعالى إن يرموغيه ما حسان الله. قضبك سدادات وكمذا مظاهرته كتوسينيسا قفك إيمانك سئنو ضعيفي وحوايا عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. قفك أنك حناقين أنك دينين الله سبحانه وتعالى وحياله حرمي هدي ميل لغا دعو oo maartay maxaan ku dhahay macsidii uu arkayo kama xumaanayo. marka qofka hadduu halkaa gaaro waxay ku tusinaysaa inuu munkarka caadi uu maartay agtiisa uu ka noqday. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu tilmaamay qalbiga bini'aadanka. marka waxa uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam qulubta waxa loo bandhigayaa fitan sida maartay darinta darinta ninkii yaqaana say isu galgashan tahay laamaheedoo kaleeto. macnaha fitan fara badan oo isku xiriir ah yaa lagu sii deynayaa. qalbigii markaa caba oo maxaan ku dhahay fitnadaasi, fitanku waxa waaye macaasi waay,
caba macaasida iyada qalbigii ay gasho waxaa lagu dhufanayaa bar madow baa lagu saarayaa. marka markasta uu maaragtay macsiyo la yimaado bar madow baa la saarayaa ilaa qalbigii uu ka noqdo yacni midabkiisii uu isbedelo oo wax madow uu ka noqdo oo aswada mirbaadan macnaha waa madow iyo cadiin isku jir ah waay oo uu la mid noqdo sidii ashuun la dabagediyo kale aan garanaynin waxa macruufka ah waxa munkarka ana aan reebaynin wax allaale wixii isaga uun maaragtay hawadiisa la cabsiyey ma ogiye wax kale uu garanayo ma jiro. marka arrintaas ayuu marka qofku gaarayaa. marka hadduu isku arko arrintaa iyada ah waxaa waaye waa arrin khatar ah oo ku tusinaya qofka iimaankiisu inuu daciifay. mar hadduu sidaa yahay hadduu munkaraad arko lagama yaabo inuu marka uu ka xanaaqo ama uu maaragtay arrintaa iyada uu inkiro ma dhacayso, bal waxay la noqonaysaa wax caadi ayay la noqonaysaa. bal waxaa dhici karaysa qofku inuu marxalada ka gudbo oo munkaraad uusa arkin oo wadan kale ka dhacay oo sheekadooda uu maqlay ama youtubeyada lagu sii daayay ama maaragtay maxaan ku dhahday miidiyaha uu ka maqlay, waxaa dhici karaysa inuu support siiyo oo uu taageero oo uu maaragtay dhaho arrinta iyada maxaa wax looga sheegay waa sax waay. hadduu halkaa gaaro waa arrin khatara. wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calay wasalam idaa cumilat alkhatii'a fi lardi kaana man shahidaha fakarihaha kaman gaaba canha. haddii xumaha dhulka lagu sameeyo qofkii arrintaa xun xaadiray oo qalbiga ka karhay ama afba maaragtay ku inkiray almuhim nacay oo arrintaa iyada ka hor yimid wuxuu la mid yahay qof aan joogin meesha iyada. ninkii laakiin ka maqnaa oo raalli ka ahaa wuxuu la mid yahay qof joogay oo goobjoog ka ahaa ayuu la mid yahay. xadiidkuna waa xadiid saxiixa fii saxiix aljaamic uu ku sugan yahay, abu daawud ayaa warinaya. qodobka sagaalaad oo maaragtay ku tusinaya qofka in uu iimaankiisu daciifay waxaa waaye xubu duhuur, qofka oo jeclaada inuu qof muuqda noqdo, qof muuqda inuu noqdo. arrintaana maaragtay suwar bay leedahay. suwarkeeda waxaa ka mid ah qofka oo aada u jeclaada madaxnimada aada u jecel oo maaragtay isagoo baahina u haynin ummad aad wax u qabateedna aan lahayn laakiin aada muuqatid uun keliya. yacni maaragtay qofka hadday gasho isagoo ogsoon inuu maaragtay xataa waajibaadkii sharciga ahaa uusan oofin karin mas-uuliyaddana kasoo bixi karin, arrintaa iyada waa arrin khatara oo ku tusinaysa qofka iimaankiisu inuu daciif yahay. nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama fanicma almurdica wabi'sa alfaatima. wuxuu leeyahy nabigu sala allahu caleyh wasalam waxaad ku dadaali doontaan madaxnimada, waxay noqon doontaa shallayto maalinta qiyaamo. madaxnimada wuxuu ku tilmaamay inay tahay markay ku nuujinayso eed faraha ku hayso waxa ugu fiican inay tahay, laakiin markay ku guriso waxa ugu xun inay tahay. sababtoo ah dee gurideedu waxa waaye waxaa un ka dambayna eed, waxaa ka dambayn karta maxkamad iyo in qofkii loo xiro, waxaa ka dambayn karta maaragtay ciqaab aakhiro, yacni wanaag kama dambeeyo. wuxuu kaloo leeyahay nabigu sala allahu caleyh wasalam in shi'tum anba'tukum can alimaarati wamaa hiya. haddaad doontaan waxaan idinka waramayaa madaxnimo iyo waxay tahay. awaluhaa malaama, bilowgeeda hore waa eed, wa thaaniha nadaama, midda labaadna marka labaadna waa shallayto, wa thaalithuhaa cadaabun yowma alqiyaama, midda saddexaadna maalinta qiyaamo waa cadaab ilaa man cadala, qofkii cadaalo la yimid ma ogyahay. rawaahu طabaraaniyu fi lkabiir, waana xadiis saxiixa. marka waxay ka mid tahay suwarka yani maaragtay xubu duhuurka ayay ka mid tahay. waxaa ka mid a suwarka xubu duhuurka qofka oo jeclaada yani maaragtay markuu soo galo in loo istaago, in isaga maaragtay yani maxaa si gaara loo qadariyo, yani arrintaa iyada ah oo loo kaco, arrintaa iyada ah waa arrin khatar iyadana. wuxuu leeyahay nabigu sala allahu caleyh wasalam man sarahu an yumthala lahu cibaad ullahi qiyaama falyatabawa beyta min annaari. rawahu lbukhaari fi ladab almufrad.
waxa uu leeyahay qofkii jecel oo farax gelinayso addoommada ilaahay inay u istaagaan ha u diyaarsado guri naarta ah, ha u diyaarsado. ayib, qodobka tobnaad ee madaahirta dacful iimaanka ka mid ah waxa waaye ashuxu walbukhlu. yacni maaragtay waa bakhaylnimo. shuxigu waxaa waaye wuu kasii xeel dheer yahay bukhliga, wuu kasii xeel dheer yahay. marka yacni iimaanka iyo bakhaylnimadu ma kulmaan. nabi moxamed sal ly slam suu leeyahay laa yajtamicu ashuxu waaliimaanu fii qalbi cabdin abada, rawaahu النasaaئي wahuwa fi saxiix aljaamic. waxa uu leeyahay kuma kulmaan yacni bakhaylnimada oo waxaa waye albukhl maca alxirsi waaye iyo iimaan hal qalbi weligood kuma kulmayaan. sidaa daraaddeed buu nabigu sala allahu calayh wasalama ummadda oga digi jiray shuxiga. wuxuu leeyahay iyaakum washux fainamaa halaka man kaana qablakum bishuxi amarahum bilbukhli fabakhiluu wa amarahum bilqatiicati faqatacuu wa amarahum bilfujuuri fafajaruu, rawaahu abu daawuud wahuwa fi saxiix aljaamic. wuxuu leeyahay nabigu sal ly slam waxaa idin kala digayaa idinka iyo bakhaylnimada. maxaa yeelay fainamaa halaka man kaana qablakum bishuxi, yani waxay ku halaagsameen dadkii idinka horeeyay bakhaylnimadaas. waxa uu amray yani maaragtay bakhaylnimo way bakhaylnimay sameeyeen. waxa uu maaragtay haddana shuxigii uu amray yani qatiica, raximkii oo la gooyo, marka arxaamtii baa la gooyey oo la xiriirin. waxa uu amray fujuur in la sameeyo, faasiqnimo markaasay faajirnimo ay sameeyeen. marka sidaa daraaddeed yani mar hadduu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam yani shuxi iyo iimaan hal qalbi kuma kulmayaan, yani idan taas waxay ku tusaysaa in ay ka mid tahay madaahirta ama muuqaalada ku tusinaya maaragtay dacful iimaan in ay qofkaas isaga ku jiro. qodobka 11aad oo madaahirta dacful iimaan ka mid ah waxa waaye annadaru ila alumuur min jihati wuquuci alithmi fiiha. dadka qaar waxaa jira waxay dhahayaan shaygan isagaa dembi ma iga soo gaaraya. macnaha hadduu xataa la yidhaahdo nabigaa reebay ma xaaraan baa oo maaragtay maxaan ku dhaha xaaraantiisu ma zaa'id baa ma ciqaabta laga diyaariyay maxay tahay, yacni waxyaalihii makruuha ahaa buu iska samaynayaa. nabiguna sala allahu caleyh wasalam waxa uu leeyahay qofkii shubahaadka yacni ku dhaca waxa uu ku dhacaya xaaraanta, sida qofka xoolaha la jira oo kaleeto uu maaragtay maxaan ku dhahayay uu xoolaha daajinaya meelaha seeraha oo mamnuuca laga dhigay oo ay dowladuhu diidaan maaragtay masalan in la daaqo. waxa uu u dhow yahay inuu ku xoolihii ay galaan meesha iyada oo daaqaan. marka arrinta iyada marka waxay ku tusinaysaa qofka haddii uu leeyahay uun waxaan ma xaaraan baa xaaraantiisu halkay gaarsiisan tahay, laga yaabo xataa haddii loo sheego yani maaragtay oo la yidhahdo wixii waa xaaraan inuu haddana uu maaragtay uu iska sii sameeyo. nacam, marka istihaana bimuxaqaraati dunuub baa suwarkeeda ka mid aho waxyaalaha dembiyada yararka qofka uu maaragtay uu fudaydsado, isha uu iska ilaaliyo oo uu maaragtay haddii uu maaragtay cidna arkaynin uu maaragtay dembiga uu iskaga dhaco. wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam waxaan ogahay qoom ummadayda ka mid ah oo maalinta qiyaama la iman doona xasanaad oo maaragtay la mid ah sida buuraha tihaamo oo kaleeto, oo alla subxaanahu watacaala uu ka yeeli doono habaa manhuuran, yacni wax gebigooda maaragtay boor la firdhiyay ka dhigi doono. thawbaan oo ka mid ah oo raawiga ah saxaabigaas ayaa wuxuu weydiiyey yaa rasuul allah noo sifee noo fayd waxaa weeye si aan maaragtay aanaan oga mid noqonin annagoon ogeyn. markaasuu nebi sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waa walaaladiin waaye kuwa iyaga ah, maaragtay waa isku dad baa tihiin, habeenkiina salaatuleilka wasaa u tukataan bay u tukadaan, kama taakhuduun walaakinahum aqwaamun idaa khalow bimaxaarim illahi intahakuuha. laakiin waa qowm markay maxaarimta alle subxaanahu watacaala ay gaar la noqdaan ayay ku dhacaan. rawaahu ibnu maajah, xadiidkaas ibnu maajah ayaa soo saaray, waana xadiid oo saxiixa fi saxiixi aljaamic ayuuna ku sugan yahay. intaasi ayaan marka xalqadani ay maaragtay waqtiga noo saamaxay. insha allahu tacaala waxaan sii wadi doonaa maaragtay madaahirta iyada ah ee dacfu liimaan. ka dambena waxaan u gudbi doonaa
إن شاء الله تعالى يعني علاجكي أي أوجد بدونا. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد.